saacadihii la soo dhaafay waxaa warbaahinta ka howlgashay geeska Afrika ay baahinayeen wararka sheegaya in dawladda Itoobiya ay u yeedhay qunsulkeedii u fadhiyay magaalada Hargeysa. wararkan oo ah kuwa si weyn saacadihii la soo dhaafay loo lafagurayay isla markaana sidoo kale ay taminayeen dhankooda warbaahinta Itoobiya oo lagu sheegay in beraha Tesfaye oo ahaa qunsulkii u yeedhay dawladda Itoobiya isla shalayna uu ka ambabaxay magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland. u yeedhida qunsulka Itoobiya u fadhiyay magaalada Hargeysa ayay warbaahinta geeska Afrika ku sababeeyeen kadib markii Itoobiya ay guud ahaan joojisay cilaaqaadkeedii kala dhaxeeyay maamulka Somaliland taas oo bedelkeeda arrimaha Somaliland ay kala tacaamuli doonto dawladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale warbaahintoodu waxay qeexayeen u yeedhida qunsulka Itoobiya ee magaalada Hargeysa kadib isbedel ka hana qaaday wadamada geeska Afrika gaar ahaan dawladaha Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliyana ay shirkoodii ugu dambeeyay ay ku yeesheen magaalada Bahardar ay ku heshiiyeen in la ilaaliyo madax banaanida wadan waliba uu leeyahay geeska Afrika. maalmo ka hor ay ahayd markii Faysal Cali Waraabe oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciiday maamulka Somaliland uu qiray in dawladda federaalka Soomaaliya ay soo xidhay cilaaqaadkii Somaliland kala dhaxeeyay dalka Itoobiya taas oo soo ifbaxday macluumaad badan oo ku aadan xiriirka maamulka Somaliland ay hore loo lahaayeen Itoobiya in xilligan uu xidhmay. tan iyo markii maamulka Somaliland ku dhawaaqay in ka go'ay Soomaaliya inteeda kale waxa uu xiriir dhow la lahaa dawladda Itoobiya inkastoo dawladda iminka hogaaminayo Dr. Abiy Ahmed aysan xiriir kala dhaxayn maamulka Somaliland. waxyaabaha ugu waaweyn ee loo aanaynayo inuu soo afjarmo xiriirka maamulka Somaliland ayaa la fahansan yahay in qayb ka yahay isbedelada ka socda geeska Afrika ee hormuudka ka yahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. wararkii hore ee aad kala socoteen barteena YouTube horena aan ugu baahinay ayaa waxay qeexayeen in maamulka Somaliland uu go'doon ka noqday siyaasadda Itoobiya taas oo aan saacadihii ugu dambeeyay aan hore u soo qaadanay. inkastoo dadka qaar ay u arkayeen in wararkaasi ay yihiin kuwa ku tiro kuteen haddana waxa warbixintana ay tibaaxaysan dawladda Itoobiya ay joojisay isla markaasina ay ka baxday heshiiskii ay kula jirtay maamulka Somaliland gaar ahaan dekedda Berbera oo ay hore ugu heshiis ula gaadheen maamulka Somaliland, Itoobiya iyo waliba dawladda Imaaraadka Carabta. labixitaankan qunsulka ayaa imaanaysa iyadoo sidoo kale qunsulkii u fadhiyay magaalada Garowe la sheegay in Itoobiya ay xidhay sidoo kalena ay u yeedhay iyadoo xilkii ka qaaday. waxaana la sheegay in ilaa iyo hadda aysan wax qunsuliyada Garowe uusan u joogin. dawladda Itoobiya ayaa wata dadaalo la doonayay in geeska Afrika isbedel loogu sameeyo wadamada bariga Afrika gaar ahaan wadamada Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea iyo waliba dalka Djibouti. waxaana lagu wadaa in dhawaan uu furmo heshiis lagu soo afjarayo colaadda ka dhaxaysa wadamada Eritrea iyo waliba Djibouti taas oo uu garwadeen ka yahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. warkani ayaa noqonaya markii ugu horeysay oo Itoobiya ay albaabada ka xidhato maamulka Somaliland 20 sanadood oo la sheegay in dawladda ugu dhow maamulka Somaliland ay ahayd dawladda Itoobiya oo kaalmeyn jirtay